بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدرس كمان لوgu talagalay waxa weeyaan موضوع النار أما عذابك والعياذ بالله، اللهم أجرنا منها. waxaynu kaga warramaynaa cadaabka. ilaahay baana subxaana wa tacaala qur-aankiisa si balballaaran ugu soo bandhigay. haddii wakhtiga loo qoonday aynu isku dayno nusuusta cadaabka iyo abwaabteeda ku saabsisan inaynu akhrinno ee qur'aanka ku soo arooray oo keliya waxaan isleeyahay waa ku filantay. sidaa awgeed waxaan isku dayayaa bacdi almuqtatafaat, ama inaan mawduuca intaan yaro qaybqaybiyo meel walba wax yar ka tilmaamo. ugu horrayn waxaan leenahay cadaabku waa xabsiga ilaahay subxaana wa tacaala cidda caasida ee diidda ee ka gaalowda uu ku dulleeyo, waana meel khasaare iyo khizyi lagula kulmo. ilaahay subxaana wa tacaala isagaa basharka abuuray, kownkanay ku dhex nool yihiin oo dhan isagaa abuuray, waxaasoo nimcaa buu siiyey. waxa la weyddiiyo keliya lagu itixaamay inay ilaahay subxaana wa tacaala u mahad celiyaan. ilaa waad ku mahadsantahay waxa aadna siisay inay yidhaahdaan, oo ah inay dariiqiisa raacaan markaas. hase yeeshee markii alle subxaana wa tacaala waxaasoo dhan siiyo haddii la isindhamaro, oo weliba ilaahay rasul soo diray digaysa oo waxa dambe dadka uga digaysa, waxa ilaahay uu samaystay ciddii diidda dariiqiisa inay raacdo markaa. mahmaa uu dunida soo boodboodo, ilaahay waa xaliim sabuur, waa ku dulqaad badan, laakiin markuu qabto cidina kama baxsato. meel buu ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cadaabo. saa daraaddeed ilaahay wuxuu ina leeyahy fii suurati ali cimraan aayaadka dhaadheer ee u dambeeya waxaa ka mid ah: rabbanaa innaka man tudkhili الnaara faqad akhzaytah wamaa lilظaalimiina min ansaar. allow ciddii aad naarta geliso faqad akhzayta, idan waa daarulkhizyi. naartu waa meer lagu dulloobo, waa cid dullowday, daalimiintuna gargaar ma helayaan. ilaahay subxaana wa tacaala naartaasi waxaan u samaystay buu leeyay inaan marka hore idinku cabsi geliyo. qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahliihim yowma alqiyaamah alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin lahum min fawqihim dulalun min annaar wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah yaa cibaadi fattaquun. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala isagoo nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam la hadlaya, waxaad ku tidhaahdaa dadka: ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum, kuwa guuldarraystay ee naf iyo ahelba waaye guuldarraystay maalinta qiyaamo, kuwa guuldarraysta weeyaan. alaa daalika huwa alkhusraanu almubiin, khasaaraha xaqi waa kaasuun, waana khasaaro cad. kuwaasi waxay leeyihin baa ilaahay leeyahy min fawqihim dulalun min annaar wa min taxtihim dulal, kor iyo hoosba naar bay ku leeyihin. haddaba ilaahay wuxuuna leeyahy subxaana wa tacaala: dalika yukhawifu allahu bihi cibaadah. war mas'aladaas ilaahay subxaana wa tacaala waa idinku cabsi gelinaya. ee yaa cibaadii fattaquun baa ilaahay leeyahy, war addoommahayga uga cabsada. ilaahayna abuuraa wuxuu leeyahy war waa idin cabsi gelinaya. cadaabka aan ka warramayaana waa min baabi takhwiif, ee iga cabsada baa alla leeyahy subxaana wa tacaala, oo keligay caabuda baa alla leeyahy. ilaahay naartaasi uu inooga digo wuxuuna leeyahy: yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. warinta iimaanka laga helayo baa la leeyahy subxaana wa tacaala: quu anfusakum waahliikum naar. waar lafihiinna ama naftiinna iyo reerkiinna iyo dadkiinna waxaa ka dhowrtaan baa ilaahay leeyahy. war cadaab iska ilaaliya. war cadaab dad iyo dhagax lagu hurin doono waar iska jira baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala.
إلهي وحين لي فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم وروحان إذن كدق يا با إلهي لي نارا تلظى ورناره العميسان إذن كدق لا يصلاها إلا الأشقى ورمقله كوهوغا يوكدين مي وهبار كل عيم ويانا عد كلامك شو شقي قوم بقلا الذي كذب وتولى با إلهي لي الذي كذب كإلهي بينيي طريقي سكتشيستي إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد maalinta qiyaama ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala jahannama la keenaya yowmaidin yatadakkaru linsaan markaasaa bini aadam waantoobaya wax xasuusanaya waanna lahu dikra baa ilaahay leeyahay war markaa waana sa idinku sugnaatay yaquulu yaa laytanii qaddamtu lixayaatii calaacalkuu bilaabi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala markaasi isagoo le yaa laytanii qaddamtu lixayaatii hoogaygee iyo shallaatadaydee قدمت لحياتي ليت ولتمني يا ليتني جعلان لها يويا قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد جعلان لها يقولي ما أنتينا نرشيد وحوهر مقصر إلهنا وحلي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد إذا النار توحى إلهي قرآن خوكو سفين يا إن بدن إن لينودبه إن نكوان تونو ميشا سمآل كبشرية دقيب كمدي أي نقندون نار تريوا عينكي وفق قلام حول كل مياه حالو عبية حالو هونية حالو عنية see laysu xidhaya intay leeg tahay anwaacda cadaabka yaalla waa noocma ilaahay baa qur-aanka inoogu caddeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy sausliihi saqar wamaa adraaka ma saqar laa tubqi walaa tadar lawaaxatu lilbashar waxaan ku ridi doonaa baa la yidhi subxaana wa tacaala kuwa ka gaaloobay mid ka mida uu tilmaamaya saqar naarta saqara la yidhaahdo wamaa adraaka maa saqar oo maxaa idin ogeysiiye saqari waxay tahay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saqara maxaa ka garanaysaa waxba laga garan maayo ilaahay baa sharxaya wuxuu leeyahy laa tubqi walaa tadar kama tegayso oo nolol uma daynayso walaa tadaru kagamana tegayso geeri baa la leeyahay geeri iyo nolol midna kuuma ogola nolol kugu dayn mayse way ku dilaysaa geeri kugu dayn mayse haddana dib baa lagu soo noolaynaya geeri iyo nolol midna kaaga tegi mayso naartaasi baa ilaahay leeyahy waa lawaaxatun lilbashar waa mid leefi ogoo diirka siibi og baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaa lilbashar bashrada loo sheegay dib baynu ka tilmaamay ilaahay wuxuu leeyahy kallaa innahaa ladaa warwatuhu lcamaysa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo nasaacatan siibid badan lishawaa shawaagu waa jamcu shawaadkuna waxaa la yidhahdaa haragga madaxa saaran ilaahay wuxuu leeyahy waa nasaacatun lishawa haragga madaxa waa mid faydi og baa la yidhi subxaana wa tacaala oo weliba tadcuu man adbara watawallaa kii jeestay ee dhabarjeediye cararay waa u yeedhaysaa wa jamaca fa awcaa yacnii kii diinta iska diiday markuu dunida joogay ee xoolo iyo adduun isku mashquuliyey kaas bay u yeedhaysaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala rabbi wuxuuna leeyahy kallaa layunbadanna fi lxutama bini aadamkaasi waxaa lagu gurayaa kuwaa ilaahay diiday layunbadanna lagu tuure wallee lagu ridee baa la leeyahy fi
في الحطمة بربرساء نار وحاجينتو أو بربرساء وحبكتجن وما أدراك ما الحطمة ومحايد نقوسيه بإله إلي حطمي بربرساء وحيتي محاكو أكتي لما صفين كرو سادنا ديت بإلهي وحقو شرحي لبا يريوها نار الله الموقدة وإلهي نار تسيبا ليلي سبحانه وتعالى وضب الله الشضي دب بن آدم الشضي أما عدك للشضي ماها وضب رب الشضي باليلي وإلهي نار تسي دبك اللوية والموقدة لهوريي بإلهي سبحانه وتعالى ومحال هورينا الحجارة والناس التي تطلع على الأفئدة وضب مركا اللي يسكر ردابا قلبي يعني مركي بدبك ودافسا قلبي قاعد سابال لله سبحانه وتعالى إلهي وحلي فومه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وروى نار كل البال لله سبحانه وتعالى ربي وينصفين يا عذاب كاسي يسيد وحلو عذابي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لا وحلا أصحاب الشمال كم حتى أبتي هو بدح ذا كتاب كود آخر لقصيه قلدا محاك أكتم با إلهي سبحانه وتعالى قلدا وحي كجرتا با إلهي في سموم وحميم عذاب صمومة لما الصومالي الصموم كوحي كوفا سير جري عذاب كما صامتا قلا تنقل له وحالا هذا هو قليل أما الضبك صوب حيا حد أدمود يساينو جركة تيموه ماشي كصوب حانو قليه إيا وحميم بيأكلوا البال لله سبحانه وتعالى إيا وظل من يحموم هوس هاد إساقونا كسميسان قيق إيا الضب اسكو جره لا بارد ولا كريم وأنقبوا يوناك تونا لهم با إلهي سبحانه وتعالى كواني وحي هايين با إلهي لي أدونك انتي إلا تشوغي قولا اسكن معيسة مطرفين قولا قوقضي باهي كبرتي وحي هايين با إلهي لي سبحانه وتعالى كوا دنبي قوين كو أتكيسته كوا يداه دور هدانو عيد نقرنه مدبانا لو صبحين اياه أنك يا أباياشي أدي هرطونا إلهينا وحلي دماتي والله جسا أرورينيا نار تتن كليل كيدا وحكا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلي ناركم دبكين وحلالي وحين الضب دوليدك وحيني بشر شغي أمام بير الغد على هالنغضو أمام تكنولوجي ميدو سميه هالنغضو فالكان هل كان كصاب وحدون أيها النقدين ناركم باي نبي قولي جزء من 70 جزءا من نار جهنم جهنم مركز تضباطا ميلاد الله قيبيا ميل كم دابو لك ما أبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام مركز سواحي صحابة يا رسول الله إن كانت لكافية إلهي رسولك تنقر كف الليل دي تنبل يسكو عذابه ولا يسكو رديو تنقر كف الليل إسقالي اللي حدن ككالي حي قبنيان فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها بنبو والله كوريالي سقال اللي حدن قبل بيدار طهي والله وضع قليل بإلهي ليس نبي لي عليه الصلاة والسلام انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وشركين تلصوت وحلا إلى انطلقوا الصعدة إلى ما كنتم به تكذبون وحي أبين شرتين انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب والصعدة بالله إلى هوس صدح الربلة هوس وكلا وحرين إياه وصدح الربلة
laa daliilin walaa yughni min allahab raaxa male baa ilaahay leeya hadh iyo wanaag iyo طumaaniina lagama helo walaa yughni min allahab ololkana kaa celin maayo hadhka waxaynu ku naqaanaa inuu noqdo meel naftu ay qabow biddo oo ay hadhsato naarta jahannamo hadhkeedu de waa hadh naareedu saa daraaddeed buu alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa yughni min allahab innahaa tarmii bishararin kaalqasri baa ilaah yidhi kaannahu jimaalatun sufr jahannamo dhimbiisha yare ka bigbigli waa sida qusuurtoo kale ama awrta waaweyn oo kale waxaad qiyaastaa dabka marka la shido dhimbilo yarba bidhbidhbidh yidhaahdo kor uga kaca oo intay hawada ku maqan yihiin dee bakhtiya dhimbil yar ama wax yar oo ka finiina dabka oo intuu hawada ku soo maqan yahayba uu bakhtinaya jahannamo waxaa ka fininayaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kaannahu jimaalatun sufr weeya awr wax laaleeg bay tuuraysaa lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim ghawaash wakadalika najzi aldaalimiin dadku jahannamo waxay ku leeyihin baa ilaahay leeyay mid loo goglo iyo mid la huwado yacnii dhan walba way kaa xigtaa meel aan naari kaa jirini ma jiro ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala war cadaabkaasi iska ilaaliya cadaabkan ilaahay inooga digayaa waa mutafaawid dadku ma sinna sida loo cadaabayaana isku mid maaha qaar ilaahay wuxuu leeyahay aladiina kafaruu wasadduu can sabiili illaah zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun kuwii laba isku darsaday baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaalnimo iyo dadku ay diinta ka celiyaan yacni qof waa gaal lafihiisunbuu gaal u yahay laakiin cid kale dhib kuma hayo midna waa gaal kibirna ku darsado ah sida kuwa badan oo meelahan jooga kibir kale ku darsado ah wixii yidhaahda waan islaamaya ama islaamnimada raacana wuu tumaya waa celinaya kuwa ilaahay wuxuu leeyahay zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab iyaga cadaab baan cadaab ugu daray kii gaalnimo qura ma leh ee gaalnimadii iyo saddun can sabiili illaahi bay isku dareen dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay zidnaahum cadaaban fawqa alcadaabi bima kaanuu yagsibuun cadaab lagu kor daray bay leeyihiin waxay kasbadeen daraaddood dulka cadaabka kululle waxaa ka mid ah fircawn iyo intiisii waxaaqa biaali fircawna suu'u alcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu alsaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinta qiyaamana fircoon intuu xabaasha ku jiro adduunka waa la qarqiyo waa la halaagay xabaasha intuu ku jirana gelin hore iyo gelin dambeba naar baa la marinayaa maalinta qiyaamana waxaa la odhanayaa cadaabkii u kululaa gal kuwa cadaabka kulule waxaa ka mid ee jahannamo halka ugu hoosaysa ku jira ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira baa ilaahay jahannami waa god dheer oo hoos u qodan waa godkuu nebigu ku tilmaamayay dhagixii 70 sano ka hor lagu tuuray inuu hadda ka dhexsan qadhayo godka intaa leeg meelba meesha ka sii hoosaysa ka sii kulushay halka u hoosaysa kooxda ku jirta waxaa ka mida baa ilaahay leeyay munaafiqiinta kuwa afkana islaamnimo ka sheeganaya uurkana gaalka ka ah ee muslimka dhibaya kuwaasi baa ilaahay yidhi iyagu way ka meel hooseeyaan fi darki alasfali min annaar halka ugu hoosaysa naartay ku jiraan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa inay dadkani kala cadaab yar yihiinoo xadiidka saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa ina adnaa ahli nnaari cadaaban ka ugu cadaab yar maalinta qiyaame waa qof 2 kabood oo naara loo geliyo oo maskaxdiisu xaggaa ka buqbuq tidhaahda buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni canqawgaa cadaabtiisu joogtaa waa 2 kabood oo quru gashayi laakiin 2daa kabood ee naartaa kulaylka ka baxaya ayaa madaxu ka budhbudhleeyay saa daraaddeed baa axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa cadaabku qaaruu gommadda u joogo qaaruu meel dhexe u joogo qaaruu meel ka soo sarraysa u joogo iyo qaaruu dhan walba ka wareegay ayay u kala qaybsan yihiin kuwa ugu cadaabka yarle waxaa ku jira sida axaadiista saxiixii ku soo aroortay
nebi maxamed adeerkii oo uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa u shafaaco qaadayaa in loo fudaydiyo gaalnimuu ku dhintay laakiin difaacii uu nebiga difaaci jiray ayaa cadaabka loo khafiifinayaa wuxuu ka mid yahay kuwaasi kabaha naareed loo gelinayo jahannamo waxaa laynoogu tilmaamayaa subxaana wa tacaala inay leedahay albaabo badan oo kala nooco qoloba meel ka gelayso wainna jahannama lamawciduhum ajmaciin laha 7 abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum jahannama lamawciduhum ajmaciin gaaloo dhan jahannama u ballana baa la yidhi subxaana wa tacaala laha 7 abwaab 7 albaab bay leedahay baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala jahannama ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qiyaamaha marka la keeno in ay cunuqu dheeri luqun dheer baa ilaahay jahannamo ka soo dhex saaraya oo indhaloo wax arkaysa oo dhagaloo wax maqlaysa oo hadlaysa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy idaa ra'athum min makaanin baciid samicuu laha tagayudan wa zafiira idaa ra'athum hadday ka aragta baa ilaahay leeyahay jahannami meel fog samicuu lahaa tagayudan wa zafiira waxay maqlayaan cadhada ay u cadhaysanta iyo googo ay kala go'go'ayso takaadu tamayazu min alghayd waa ka ilaahay ku tilmaamaya waxay ku dhowaataa cadhaday duulka u qabto idaa ulquu fiiha samicuu laha shahiiqa wa hiya tafuur takaadu tamayazu min alghayd marka koox iyaga ka mida ay qaadataboo lagu ridaba waxay ka maqlayaan baa ilaahay leeyahay shahiiqan shahiiqu waa neefta dib loo qaato ee sanqadha badan samaynaysa wa hiya tafuur iyadoo karaysa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan dibu neefsi iyo horow neefsi qaylada zafiirna waa la sheegay waa labada codaysu cagsiga ah ayay ka maqlayaan cadho daraaddeed cadhaday gaalka u qabta ilaahay wuxuu leeyahay takaadu tamayazu min waxay ku dhowaanaysaa cadho daraaddeed inay kala googo'da baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa jahannamadaas dadka ku jiraa inay qaylinayaan oo ay leeyihiin halaag dalbanayaan waxaa qur-aanku inoo tilmaamayaa malaa'igta jahannamo haysaa inay yihiin qaar aan jixinjixa aqoonin calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad jahannamo waxaa jooga baa la yidhi subxaana wa tacaala malaa'ig qalqallafsan oo xoog badan xagga xoogga iyo qaabkay wuxuu cadaabayaan waa duul hawlkar ah oo xooggan xagga dabeecadda iyo akhlaaqdana waa duul qallafsan oo aan naxariis loogu talagelin xagga inay awaamirta alle fulinayaanna laa yacsuuna allaha maa amarahum wax kastoo alla furo waa fulinayaan awooddana ilaahay wuxuu leeyahy wayafcaluuna maa yu'maruun wixii la farana waa fulin karaan oo waxay u awood waayayaan ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala walciyaadu billaah jahannama ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa cunnada iyo raashinka iyo waxa yaalla waxay yihiin laysa lahum طacaamun ila min dariic laa yusminu walaa yughni min juuc marka cunnada alle ka warramaya ilaahay wuxuu leeyahy jahannamo gudaheeda waxay ku leeyihiin geed dariic la yidhaahda baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan maqli jiray mufasiriintii soomaaliyeedoo tidhaahda waa geed yamaarigu awaag bay yidhahdaa yamaarigu waa geed qodax leh oo geelu daaqo laakiin kani yamaarigu iyo wuxu dhadhow toona maahee waa geed jahannamo ku jira oo laa yusmin walaa yughni min juuc waana cunno cunnada maxaa loo cunaa laba mid uun inaad ku xoogaysato amase inay horta gaajada kaa bi'iso cunno aan gaajo tiraynin aad cunaysoo gaajo tirmi mayso koritaanna ma jiro lagu naaxi maayo waxba maaha markaa waa cunna baa ilaahay leeyahy haddana laa yusmin laguma naaxo walaa yughni min juuc gaajana wax kama tarto jahannamo waxaa lagu cunayaayoo ka mida markay gaajadu ka badato inna shajarata azaquumi طacaamu latiim kaalmuhli yagli fi اlbuطuun ka galyi اlxamiim
geedka zaquumka la yidhaahdaa baa ilahay yidhi waa طacaamu latiim dembiilayaasha raashinkooda weeyaan baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala kalmuhli yagli fi lbutuun sida saliidda la kariyey jilka saliiddee karsamay sidiisoo kale saliiddu waa ashyaada bay ka mid tahay aan qaboobin ka dabka qaaddo mudday sidii u sii karsanaanaysa sida kaas bay calooshooda ka karaysaa buu alla leeyahy subxaanaه wa tacaala ka halyi alxamiim biyo kululi siday u karaanaysu laba rogaan ayuu calooshooda uga karayaa ilaahay baa wuxuu leeyahy adalika khayru nuzulan am shajaratu الzaquum إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إلهي وحليه سبحانه وتعالى جيت كالزقوم كالله يرهضي عنيا وجيت كبح با إلهي يري جحيم قنتيد وكصابح وجيت ناريد وجيت با إلهي لي فال حمضة مضحية ديسو أما وحا مراها كبحا وحويجي با إلهي لي سيدي مضح الشيطان ما يننرق لكن وحا لقى الرميسي وحفال حنينو يهي سادرادت با إلهي وحليه سبحانه وتعالى جيت كان مريه سوحو ويجي كأنه رؤوس الشياطين شيطان madaxooda oo kale bay u egyiin baa la leeyahay subxaanaه wa tacaala waxay culammadu yidhahdaan geedkani dhereg ma leh oo gaajo ma bi'iyo oo wuu arag xun iyo foolxumuu leeyahy oo wuu qurmuun yahay culammadii soomaaliyeed waxaan maqli jiray markay fasirayaan iyagoo yidhaahdaa waa geed u eg bay yidhahdeen udeebtahaysta udeebtahaysta waa geed buuraha ka baxa oo qurmuun oo markaa buurta hadduu si fiican uga baxo in saxaro lagu qubay baad moodaysaa meeshoo dhamme way uraysaa laakiin waa geed baa ilaahay yidhi buur kama baxee asluljaxiim buu kani ka baxa waa geed ka baxa maxay naarta gunteeda baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala idan waa geed mandar ahaanu fool xun oo dhadhan ahaanu xun oo cunno ahaan karaya maxaa geedka kan gaajo daraaddeed bay isku dayayaan inay liqaarun haatan haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markay isaga cunaanna bele kala qabsanayso inay harraadaan فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إليه وحال لغو ورابنيا بيكلل أيها دنا لصينيا إلهي وحقرام كتلماميا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أنيقا إنتي بينيسي يا أنيقا يسوكا يدايا بالله سبحانه وتعالى إنتي بينيسي أدون كانوا نمعيي سيقا قالوا دي أنيقا يدافع بالله ومهلهم إن يرسوك بالله سبحانه وتعالى إنك إنتان يرباينا لغا بضن وقالت محال لو هلاقوا يسوكوهم وحربا يسوكوا عين كان إلهي نوحلي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فإلهي إلهي سبحانه وتعالى وحال قلت المامية ومهلهم قليلا إن يركاديا إن لدينا أنكالا وجحيما با إلهي إلهي وحوح لغحره إيا جحيمان وهيسانا با إلهي إلهي وطعاما ذا غسة عنا أنهم قري مرلحين عنا قاعدة درادد مركات سكو قصبته هنقولي نمر مسوا مد لغو مرقدة بقى الله سبحانه وتعالى وعذابا أليما هي عذاب وحلحوية طعام كي الشراب كأهل النار كوحا كمدا غسلين هي غساق غسلين كي غساق فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وابطة ما أنت كما هيستان با إلهي إلهي سبحانه وتعالى عد كده وقريبا ما هيستان ما عد واحترته عننا ما هيستان با إلهي غسلين كمويا غسلين كوا شيء با إلهي إلهي لا يأكله إلا الخاطئون دنبي لياش مويا أنا عد كلام عنده آيات كلنا إلهي وحلي هذا فليذوقوه حميم وغساق الأمر هذا فليذوقوه حميم وغساق حد دميان با إلهي سبحانه وتعالى بيأكل
iyo ghasaaq iyo waakharu min shaklihi aswaaja haddii ahlu jannaa cunno kala wada noocnooca la siinayo qolada laftooda cunno kala noocnooca la siinaya waakharu min shakli aswaaj baa ilaahay qaar kaloo kuwaa la mida oo noocyaa ghasaaq iyo qisliinku maxay yihiin culammadu waxay ku fasiraan waa uskaga iyo qurunka ka dareera dadkan marka la shiilo kudaafadoodii baa dib loo cabsiinaya wixii dheecaan ka baxay ee uskag iyo qurun iyaga ka baxay ayaa ah casiirka ama fawaakihda ladiidka meesha lagu cabbayaa waa kuwaas baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy wasuquu maa'an xamiima faqaطaca amcaa'ah wasuquu waxaa la waraabiyaa maa'an xamiima biyo kulul baa la waraabiyaa baa ilaahay leeyahy oo faqaطaca wuxuu gooyaa amcaa'ahum xiidmahooda ilaahay ku abuuray hadduu isagu ku cadaabayo saaad u baxsanaysaa culammadu markay ka warramayaan kuwan maanta dunida jooga markay ka warramayaan qofka bini'aadamka iyo dareemayaashiisa dareemayaashu waxay ugu badan yihiin diirkan sare meelaha kale ay ugu badan yihiinna waxa weeyaan waa mindhicirrayda marka la jara bay idhahdaan sidaa daraaddeed ayaa qofka caadigii markuu wax cunayo haddaad gacanta kaga gubato waxaad qaaddo ma tuurtide afku qofku ku rida afka waxaad kaga gubato intaad ka yaro lamaclamacsiisaabaad iska liqdaa taa macnaheedu waxa weeyaan calooshu kulaylkan iyo dhibtan hore uma dareento haddiise ay nabar leeday wax waliba way dhimaan waa sababta dadkan alsarka iyo xanuunnadan leh marka wax yar oo meeshaasi ay taabtaan aad mooddo in dab lagu dhajiyey way la gelgelmayaan ilaahay ku abuuree garanaya meesha dareenkaagu uu u badan yahay amcaada xiidmaha ay dillaacinayaan baa ilaahay inay biyaa nooca kani maxaa loo dillaacinayaa inuu cadaabka dhadhamiya baa la leeyahay cadaabka inaad dhadhamisid daraaddeed ayaa loo dillaacinaya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wain yastagiiثuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi اlwujuuh bi'sa الsharaabu wasaa'at murtafaqa hadday kaalmo dalbadaan baa la leeyahay markay qayliyaan ee kaalmo dalbadaan yugaasuu bimaa'in kalmuhl biyo fool xun oo kalmuhli ka cakri sayd ah ayaa la siinayaa biyo isjiidanaya yashwi اlwujuuh waa biyo inuu cabbadaayo markuu caynkan yidhaahdo wejiga diirku ka tegaya baa ilaahay yidhi bi'sa الsharaabu wasaa'at murtafaqa wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid waxaa hoogay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannam yusqaa min maa'in sadiid yatajarracuh walaa yakaadu yusiiguh wayaأtiihi اlmowtu min kulli makaan wmaa huwa bimayit wamin waraa'ihi cadaabun haliid alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaa hoogay ku kastoo isweyneeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala ku madaxadaygay waxaa ka dambeeyo hortooda ah jahannama waxaa lagu waraabinayaa baa ilaahay leeyahy min maa'in sadiid biyo maxay ah biyo qiix iyo maxaa la yidhaahdaa uskaga ka dareera iyaga ah yatajarracu wuxuu isku dayaa inuu qurquriyo inuu isdhaafiyo walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanaya baa ilaahay yidhi inuu dhulka mariyo isaga waa la cadaabaya waa lagu qasbayaa inuu qurquriyo naf baa u geynaysa wuxuu isku dayaa inuu qurquriyo dabeetana rabbi wuxuu leeya yatajarracu inuu liqsiyaa buu isku dayaya laakiin walaa yakaadu yusiiqu uma dhowaanayo inuu dhuul mariyo baa alla leeyahy subxaana wa tacaala meel walba geeraa kaga imanaysa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin haddana wamaa huwa bimayit laa tubqi walaa tadar haddana ma dhimanaya baa ilaahay leeyahy wa min waraa'ihi cadaabun haliid waxa kan gadaashiisaa cadaab kulul baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
naarta gudaheeda laguma dhadhamiya baa ilaahay yidhi ku qabow iyo wax la cabba toona waxaase lagu dhadhamiyaa xamiiman waghasaaqa biyo kulul iyo qudhunka iyaga ka dareeray waxaasina waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy jazaa'an wifaaqa waa abaalmar u cuntama baa alla leeyahy subxaana wa tacala abaalmar ku habboon weeyaan waayo innahum kaanuu laa yarjuuna xisaaba baa ilaahay dunida markay joogeen baanay filayninba in la xisaabi doono aayaadkaygina way beeniyeen baa alla leeyahy subxaana wa tacaala idan qur-aan badan baa ilaahay wuxuu kaga warramaya waxa la cabbaya iyo waxa la cunaya jahannamo yaalla inay kaa yihiin talow huga la xidhanaya muxuu yahay ilaahay baa wuxuu leeyahy haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كوا قالوا بيبا إلهي لي قطعت وحلو قوينية كأنما دور ولين تلقي الله تفصيلنا وحلاك لو قدقيو قطعت لهم ثياب من نار در ناريد بلو قويني يا بإلهي لي در ناريد أي لي يصب من فوق رؤوسهم الحميم دشا بيكلوا لك قشبا يا بإلهي لي بيها دشا لك قشبا يصهر به ما في بطونهم وحا فكر سميا وحا على شودة كجرة ولهم مقامع من حديد صبرد النار إلينا لغتميو كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم مركز طايس كالضيان إن يكبحان غمي همي وروري والبهار يدب هايستا أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق والوقع عليها أو حلا إلى هذا الدمية عذابك وحقبه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إلهي وحليه سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وحضرك يساكوا الدنبيلياشو مالمها كان مالنتة لحد حديبا إلهي لي سبحانه وتعالى سرابيلهم من قطران نرك اللوغون يسروا الذي وحي حدنيان وقطران ونحاس مذاب أما الدامر أما نحاس الدلاليي وتغشى وجوههم النار وتيدوا ذن النار بعد بولي سبا إلهي لي سبحانه وتعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب جهنم وحاسو عذاب يالين هدنا حرمته دو معر عراري كريسي دو ملق لبدم كريسي اواد حرحرام إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصعيرا إن لدينا أنكالا وجحيما وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلهي بوحلي سبحانه وتعالى قال ذا وحن الدياري سلسلة يا أغلاشي وحلي لها قوة الغنطة الغحرة إيو صعيرة نار وحبوك تبا إلهي لي أكتيد وحيال با إلهي لي أنكال قوة حركة وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا إلهي وحلي وحلي هذا قبطة وحرحدة وجهنم كتورة ودبتنا وحكوري كسنبال إلى سلسلة 70 ذراعا كنتن تضباطا ردنة هاي علماء إلى هذا في سلسلة بالليل ما هدوشا لغا حداياي غدها لغا حدايا بيلي أفكار لغا قليا دبطا لغا سارا تبتنا ساسا الله تحيا بيلي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إلهي سبحانه وتعالى وحين التير مامي نيانا ذركين با إلهي ليكون إلهي آيات كيسا كمرمية وإلهي كتاب كيسا بيني الرسول وحي عن صافرين إلهي وحلاي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون مركا قورت اللوغليو حركها قورت اللوغو حدو سلسلة لوغو حدو لوغو جيدو في الحميم ثم في النار يسجرون بيها كل المريو دبتنا النار تلوغو قبيبها لله سبحانه وتعالى ولوغو أوران دونو وروحا عابد جرتين إلهي غير كيميه ay odhan doonaan waa naga lumeen bal waxay odhan doonaan waxba maanan caabudu jirin oo muran bay bilaabi doonaan kadalika yudillu allahu alkaafiriin dalikum bima kuntum tafraxuuna fi lard waxaa la yidhahdaa arrinkaasi wuxuu idinku ahaado sababtii a ahaydeen dunida korkeeda kuwa kibra oo gardarro la kibra iyo wa bima kuntum tamraxuun iyo wixii aad la farfaraxsanaydeen ee la ordayseen ee ilaahay u caasideen قلب الله إلى الباب جهنم فبئس مثوى المتكبرين انتي كبرتي ميلا يوهي يتهلك صوف الحنبا إلهي إليه مسلمين تنا إلهي وحلي يسقون النبي الله عليه الصلاة والسلام فاصبر صبر بالليل إلهي بلن كيسوا حق قال با وحد لي قال با ميل أرضي وحبها أرن با إلهي إليه فاصبر إن وعد الله حق إلهي وحب بلن قاضي واردب haddii aan ku tusiyaba ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay wax ka mid ah iyo haddii aan ku oofsado iyagoo iska barwaaqaysan gaaladii aan cidina wax ku dhicin labada mid walba faylayna yurjacuun ba ilaahay aniga ii soo noqonaya ilaahay wuxuu leeyahy wain tacjab facajabun qawluhum aidaa kunna turaaban ainna lafii khalqin jadiid ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آيات كاسودان إلهي وحكوت الماما يا نار تون ميلا يحرحرين واني حريتها السنين بل إلهي وحلي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والقد بولية وطيران دار بهدر الوحرية أهل النار إلهي وحكوت الماما يا سبحانه وتعالى حال كودوني حالا لشيء كريم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إلهي وحلي سبحانه وتعالى قواس ونفتوري وقيلنا ينبا إلهي إليه وهم فيها لا يسمعون وانا دقبيلي أنا وحبا مغلي مايا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وميلا بقادين يسود وين تشيريني أهل النار كإلهي وحلي كلما دخلت أمة لعنت أختها كوحي مركي قشبا كوحي كدن بيسي نعضشا كوي أي دوني دا مركي جوكتي وهيلين يسيبين نعضشا كوي مدحدا وهابا نعضلا كوي أدونك بلايدا يسوق هيلين يردن كلما دخلت أمة لعنت أختها بينهم قولوا مركي النار تقشبا كوا كلا أي لعنة وسو جيدني ينبا إلهي سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إلهي سبحانه وتعالى حين شاقي عدي آخر ميزان كيس فضضاضه إن جهنم لقلنا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون نار با وجهك كله في سبا إلهي سبحانه وتعالى دبتنا كالحين بين غنين كالح ودبنتنا وكروا عررتا حق سركم كنا بنتا يتكلها سو عررتا وحلو إلى ورميان إلهي آيات كيسويدين سو قاعدين دوني مركز شوكتين حقكم مغنيدين ميان قرآن ليدين أخرنين وحيدا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين إلهي وشقين ماذا يدبان نقو حق بدا طبعنا يقولون صن إلهي يوم مرء نقصا فإن عدنا فإنا ظالمون مرضا بهدان ونقونا نقا ظالمين إلهي وحكو إلهي اخسأوا فيها ولا تكلمون كهوغا ودب هاي لحدين بالله إله سبحانه وتعالى عدي الله إله ده هوغ وهوغيسا waxaa haydeen baa ilaahay leey dunida markaa joogteen addoomahaygii aniga iga cabsanayay ayaa ku dheeldheeli jirteen baa ilaahay leey ilaa ay aniga xuskaygii idin ilowsiiyeen oo waxaa haydeen addoomaha ilaahay kuwa ku qosqosla baa ilaahay yidhi innii jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum humul faa'izuun iyagana waxaan ka abaalmariyey sabirkii ay sabreen oo maanta iyaga guulaysanaya baa la yidhi subxaanahu wa tacaala cadaabkani waa midaan dhammaanayn isbeddel lahayn ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan gayraha liyaduuquu alcadaaba ina allaha kaana casiizan xakiima kuwa ilaahay ka gaaloobay baa layidhi subxaanahu wa tacaala sawfa nusliihim naar waxaannu ku ridaynaa ku solaynaa ku karinaynaa naar baa layidhi subxaanahu wa tacaala maxaa ku dhacaya kulamaa nadijat juluuduhum baddalnaa juluudan gayraha baddalnaahum mar kastoo diirku bislaada baa ilaahay yidhi diir kaleaannu gelinaynaa rabbigii ku abuuray ee ku yaqaannay baa cadaabkana wada insaanka diirkan sare waxa ugu jira dareemayaashiisa dhammaantood mid taabasho og mid kulayl og wax kasta dareemayaashu xagga saray ku badan yihin waa raadaar markaanaad caadigata ilaahay ugu tala galay inay ku ilaaliyaan adigoo iska sii jeeda haddii dab ku taabto wax ku taabtaan markaaba waad ka boodaysa haddii aanu diirkan ku badnayn maad ogaateen ilaa iyo inaad gubato mooyaan maad gareenteen waa nicmat ilaaleh marka hore waa dadka qaar baabay ku dhacday alfred wiil yaroo loodhan jiro ingiriis aha waxaa ku dhacayn uu waayo daawuhu dabka saaraya gacantiisoo fashfashuluu daawanaya waayo waxaa ka lumay dareenka dhammaantii baa ka lumay mar kastoo uu hoos u sii socdo dabku dareenkaasoo yaraada si awgeed
qoladan dabdamiyaashiiyo dhakhaatiirtiiyo waxaas qofka gubta inuu aad u gubtay iyo inaanu dabkiisu fudud iyo waxa lagu kala gartaa hadduu cabaadayo dabkiisu uu fudud yahay waayo weli waxaa nool dareemayaashii sare ee waxa ka dareemaya hadduuse qofku intuu gubtay juuqba odhan waayo kaasaa khatarsan labada oo waxa weeyaan waxaa go'ay guntii dareemayaashoo dhan baa soo go'ayoo si fiican buu u gubtay saa daraaddeed dareenkii baa lumay oo marka kan dabka dareemi maayo ilaahay wax abuuray baa raba inuu wax cadaabo sidaa ogeed ilaahay wuxuu leeyay kullamaa nadijat juluuduhum mar kastoo diirku bislaadaba diir kalean geliyaabaa ilaahay leeyay ahlu jahannam mar kastoo diirku bislaadaba otomaatikali diir kalea gelaya waayo ilaahay baa sharxaya wuxuu leeyay liyaduuqu alcadaaba si ay cadaabka u dhadhamiyaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala si ay cadaabka u dhadhamiyaan ayaan sida tan u yeelay ina allaha kaana casiizan xakiima jahannam ikhwati fi alcaqiida waa meel umniyaadka ugu waaweyne ay yihiin geeri hadda geeridaa laga cararaa laakiin ahlu naarku ilaahu maanu maruun halaagsanna bay leeyihin فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وحلا يدادا هوغا يغو كالي با يدادا دبتنا وحلا يدادا هل هوغا قرى مانتا هاو يردنيني هوغا بدن ويرد بالغو يدادا إلهي وحليه سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين مجرمين في عذاب جهنم كواريان بإلهي لا يفتر عنهم مرنا بكلا غوغ مالي بإلهي مر لنصينا يا مالي عذاب كذي سي اوتوماتيكا إلهي وضع دير كاسي مركوكو بسلادة بدبال لغو قلينيا مالي هبا إلهي سبحانه وتعالى كلا غوغ وهم فيها مبلسون ماشا ساني كجران يغو قوسطي با إلهي لي أبلسوا من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أنه ما ظلمي من بأل لي سبحانه وتعالى يغا هكو نفتو دا ظلمي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عدسي قواه كان مرك مالك خازن جهنم جهنم ملقا هيا أي وحي لين إلهي واحد هدبنه هو يديسا ليقضي علينا ربك إنو ندلوه مرء إنانو لمننه هو يديه هاي علماء يدهدان مالك ما انتو اسكاقا آموصو كماكم صنادات كدبوا حراغا إنكم ماكثون ماشي waa ku jiraysaa cidna wax la weydiin maayo cidna meesha ku jiraysaa laqad ji'naakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi kaarihuun ilaahay baa wuxiina leeyahay war xaq baanu idin la nimid laakiin dadka intiisa badan oo xaqaa nacdeen baa la yidhi subxaanahu wa tacaala وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب warkuu wuxuu soo gaadhayaa marka dambe in geeri iyo wax walba laga qusto hal maalin oo qura haddaba ana laga khafiifiyo wax ka badan ma rabno maalin keliya uun yaana la dilin yaana laga maalin qura ha nala ogolaado خزنة جهنم بيساكو إيران ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وحلوا جوابا أولم تك قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ورميان رسول الذين يدين إيمانين مركا دونيدا تشوكتين وأن يبين عددين لا إيمانين قالوا بلى وحيدا ما الرسول شتمي قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دابا أنه إلهي دين بريمين وحبي دين ويدين مين الله يدعى إذنكو إلهي بريو النار تكقايلية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال النبي عليه الصلاة والسلام هذين هالحديث شاك وصحيح وحو تلمامية إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت وإنهم ليبكون الدم أهل النار هو أوي ينبو النبي عليه الصلاة والسلام حتى هدي دونيو لمريو هنتو دمشي دريرتي دونيها ويقاد لها يدوا لي أي النبي عليه الصلاة والسلام ليك بان الأوي يا أبو النبي إذن سلف صالح نكملها هي قرقس وحبالك نحقط
marka uu cibaadada ka daalo ama uu naftiisa wax dareemo ayuu xabaasha ku dhaadhici jiray markaasuu intuu jiifsado ayuu qaylin jiray isagoo leh rabbi irjicuun rabbi irjicuun rabbi irjicuun ilaahay uu celi isagoo leh intuu ka soo baxaa buu odhan jiray naf yahay jaaniskii lagu siiye waad haysataa yaha iska sii dayda waxa aan ka warramayaa wallaahi waa dhab waa xaqiiqa aan muran lahayn waa kitaabkii alle subxaana wa tacaala rabbi irjicuun intaan la odhan maantaa jaaniskii la haystaa wixii mudnaa in laga warwaro waxaan ahayn baa bini aadamku maanta ka warwaraya warwar soke oo bariis iyo cunno iyo meel la dega iyo gaal baa ku dilaya iyo xabad baa kugu dhacaysa wax yaroo sokaa laga warwaraya rabbu samaawaat naartiisiina cidda ka warwaraysaa way yartay idan wakhtigii waan dhaafay laygu talagalay waxaan ku soo koobayaa leeyahay ilaahay ka barya inaanu meeshaasi ina geynin allaahuma ajirna min annaar allaahuma ajirna min annaar waxaanu nebigu ina faray inaynu ilaahay barinno an nacuudu bih inaynu ilaahay ka magan galno cadaabka naare cadaabkaasi aynu ka warramayno inana waxaa laynooga baahaya inaynu camal galano oo ah inaynu raacno طريقي إلهي سبحانه وتعالى إنه جاحي رسولك إني محمد عليه الصلاة والسلام وسلم والله أعلم.